la baxayaan oo ku faraxsan yihiin konton iyo dhowr sano kadib inay maantay codkooda dhiibtaan oo ay golaha deegaanka ka codeeyaan oo ay waxay rabaan u codeeyaan ururka rabaan u codeeyaan aad bay ugu faraxsan yihiin taliya dad baa jira suurad xumeynaya ammaanka aad shaqada gelideen nimanka maxaa ugu jawaabaysaa ammaanku waa nabad indhiina idin macallin ah wax dhibaataana ma jirto hadda muddo 5 saacadood ku dhawaad doorashada waa socotaa ciidamada amniga waxaan faraynaa u sheegaynaa dadka in loo dhimriyo loo naxariisto la soo dhaweeyo dadka waayeelka si fiican loo soo dhaweeyo biyo loo keeno aan dadka la dhibaateen dad Soomaaliyeed ay ugu faraxsan oo maanta socota marka aad baan ugu faraxsanahay anu doorashooyin waa soo galay golo deegaan gobolka ka tirsan dalkan ka soo galay dadka gobolka Banaadir ku noolna maantay waxay ku tilaabsadeen wadadii horumarka iyo barwaaqada waata gudoomiye mas'uuliyiin xasaanad leh baa sheegay in dhibaatooyin ay ka mid yihiin qaraxyo xitaa laga cabsi qabo arinta afkii qoyan dee wuxuu rabu sheegi karaa qofka waxba iska sheegi karaa laakiin hadda wadanku waa nabad doorashadana si nabad ah noogu soo